gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa uu ugu baaqay dadka ku dhaqan deegaanka qoolcaday inay ilaashadaan nabadgelyada isla markaasina ay ka shaqeeyaan xasiloonida deegaankaasi kadib markii maalintii shalay ahayd ay ka dhacday rabshad dhalisay khasaare soo gaaray qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo ciidamada amniga qoolcaday deegaanka waa iyo hareerihiisa ugu baaqaya guud ahaan in xasiloonida iyo nabadgelyada laga wada shaqeeyo waxaan ugu baaqayaa baaq nabadeed waxaan ugu baaqayaa xukuumadda in si mas'uuliyad ku jirto arrinta u maamusho dhanka kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wataya waxa uu shacbiga ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland oo lagu wado in maalinta Sabtida ay ka qabsanto guud ahaanba gobolada Maroodijeex si rasmi ah loogu dhawaaqayo bisha 30keeda marka shacbiga gobolka Maroodijeex waa gobolka ugu muhiimsan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan shacbiga ugu baaqayaa inay si wanaagsan dhammaan muwaadiniintu isu diiwaangeliyaan si ay u helaan xaqooda dastuuriga ah inay codeeyaan sida ka warqabtaanba goboladii ay ka bilaabantay diiwaangelintu kana dhamaatay si wanaagsan bay u qabsoontay inagoo ka faa'iideysanayna waa aragnimada hore waxaan shacbiga dhamaantii leeyahay muwaadin isdiiwaangeli 5 qof oo laba kamid ay ahaayeen ciidamada booliska ayaa shalay ku dhaawacmay dagaal dhex maray dadka deegaanka banka qoolcaday iyo ciidamada ammaanka kadib markii xukuumaddu halkaasi geysay riig ay ugu tala gashay in lagu fuliyo mashruuc ay wado wasaaradda xanaanada xooluhu Yacquub Saciid Kuriya Somali News TV Hargeysa